السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتي دمان كحرن channel كحفصة سو دوادا يعني ليا هاي مانتا فرحد ونكسن فرحد يعني وضع مانتا يوتيوب كا وحي هاي سنة أيام حري الحمد لله ماشي محاول مهد إلنا دمان أخيارتا الصومالي مسلم كدن أو قبلهنا يويلش دمان انتي subscribe إيساري thank you so much يعني ليا هاي especially my family aad u mahadsan yihiin dhammaan maanta inta waxaan ku wataa telefoonkeyga waa waxaa waaye questiono oo aan dhahay isoo weydiiya marka questioniya ayaan wataa inaan igaga jawaabo marka hadda maxaa sugaysin akhyaarteyda sheexiina soo qaata anigana waa soo qaadanayna isku soo الحمد لله أخيرتي ذوايك أنا جشاحي وسوقاتي إني جشاحي من مدتي سو يا عدمانتينا كوشينياشين حتى يا بالله ويا أوكي واكوان سو بحيي قبضن سلاقة عثمان آد أيانكو سلام يا ولا شيء ما شاء الله قلبي أي آد سوتشي ذاتي مركان مسج كذا آخري دمانتي وسوى لجيدتين لكن سبيشال آد سوتشي ذاتي وحين إتري السلام عليكم أبايو آد أيانكو جعله هاي أنا جنسدوك لأبايو والله قبر قروح بدن آيات هاي thank you so much أبايو هذا جنسدوك له أو يوتيوب كاجا وان كحرنا هاي وليجا هاي المامن مالنتا هرمر gaartid xabibti thank you so much baa aad iyo aad ayaan ku jeclahay mana ku hilmaami doono inta qof oo igu xiran oo intana subscribe i gaarsiisay lagama yaabo inaan hilmaamo akhyaarteyda dhammaan qofkan wuxuu dhahay what is your favorite type of food aniga type food keyga waxaa waaye horta cuntooyinka restauranyaasha gaalada meelahaas ma jeceli qof walba dooquu leeyahay aniga iska caadi cuntada soomaalida iska jeclahay especially bariis hadda martaqaadaysid bariisiga martaqaad okay qofkan wuxuu dhahay what is the best advice someone has given you advice-ka ugu weyn oo aniga la isiiyey intaan ka salaamaya gabar habartii ayaa isiisay waxayna i tiri weligaa qof hadal uu kuu sheegay ha qaadanin which is good waa run ilaa caddeyn aad haysatid qofka weligaa war ha ku qabsanin ilaa haddana saas ayaan sameeyaa qofkan kalena waxay i weydiisay how many kids do you have su-aashan way igu soo noqnoqotaa tiktok ha noqoto snapchat ha noqoto facebook marka dhammaan akhyaarta haddaa igu xiran tahay facebook iga soo raacday tiktok iga soo raacday snapchat iga soo raacday aniga 3 caruur ayaa ii joogto saddexda waxaa igu weyn 5 sano 3 sanaa ku xigo oo last month uu galay waa wiil iyo sanad iyo 5 bilood oo wiil ah 3 caruur ayaa haystaa qofkan kale wuxuu i weydiiyey are you planning having more kids ma plan garaynaysaa inaa ilmo kala dhishid ma in the future ba ma haddada miya way kala tahay somahu ma garan karo laakiin horta dad muslim ayaa nahay ilaahay wuxuu keena ma la diidaa alxamdulilah 3dan ba allah i siiyey inta ciyaal haysanina ilaaha uga baryaa inuu ilaahay siiyo inta rabtana ilaahay inuu siiyo kadalik aniga hadda saacadda la joogo ma plan garinayo because cunugaygaa yar waqti u baahan inaan la qaato somaho sanadii 5 bilood oo cunug yar aad u yar marka hadda ma plan garaynayo laakiin in the future wuxuu ilaahay keeno saa u dhahay waa haddadana ilaahay wuxuu keeno beri kamaal hadda ay aragtiin anigoo uu lahay sheegan ay nabsanayo dhin maxaa qaldan wuxuu alla keeno ma diidaayo laakiin inta annaga tabarteena waxaa waaye family planning ayaan ku jirnaa marka insha allah hadda may mustaqbalkana insha allah waa rajaynaynaa what inspire you to make a YouTube aniga waxaa igu dhaliyay youtube inaan samaysto horta first dadka waxaa ahaan jira aad youtube yaasha u daabado especially waxaan jeclaan jiray motivationka cleaning motivation inaan said u daabado markii dambane dee youtubeka reasonka u furtay waxay ahayd inaan gabdhaha walaalihii soomaaliyeed waxa aa aqaano iyo productyaashayda inaan ugu biiriyo marka that's the first reason midda kalena waxuu ahaa
hobbigayga inaan sameeyo one day one time YouTube. Abayo, waan ku salaamay. After that, how many kids do you have and are you single or married? Kidska waa sheegay, waan ku soo celinayaa 3 caruur ayaa ii joogto. Are you single or married waa su'aasha kale. Taasna way soo noqotaa. I am married woman. Waa la qabaa, xaas ayaa ahay. What is your favorite movie? Favorite movie aniga waxaa waaye Charm. Aad ayaan u jeclahay moviegaas. Basically waa show, movie ma aha. Reero movie mihi, like waa show. Marka ikaadi waxay sheexanaa yarka bada cunihii ayaa i qalalay. Sheexa I wish inaan igu soo dhaweyn lahaa. Sheex aad u macaan waaye maasha Allah. Waan ka helay. Inigana waxaan rajeyn lahaa inaa ka heli lahaydeen laakiin mabalay ag fadhiyo maxaa laga helaa. Okay, back to su'aalihina. Do you see yourself being on YouTube for a long time? Horta ilaaha og. Naftana lama siinin. Waqtigan inaan beri noolaanayno, inaan hadda noolaanayno, intaan dhimanayno, Allah og. For a long time ma dhihi kari, mana rabi, ma ku jiri doono YouTube for a long time because I have a lot of plan to do, inshallah. Plaanyo badan ayaan leeyahay. Qof walba mustaqbal ayuu leeyahay. Midda kaleetana waa duqoobi kartaa sama maxaa YouTube ka dhaxayne. What do you do for a living? Aniga waxaa ahay hooyo Soomaaliyeed oo 3 caruur haysato. Inshallah school waan aadaa. This semester school ayaan bilaabayaa. And at the same time I'm a full-time mom. Okay, aan soconno marka. Are you from America and halkaas ma ku dhalatay? Are you born there? Aniga America waaba joogaabo. Yes, America joogaa. Laakiin Mareykanka kuma dhalanin. Videogayga marka koo aan soo bilaabayay Get to Know Me waa samey videoga ugu hore Get to Know Me waaye. Marka America kuma dhalan. Haddaa hore ila joogto waa taqaanaa. Haddaad ila joogin oo gadaal subscribe ii ahayd haddaan iskaa barayaa. Aniga inta kuma dhalanin waxaa ku dhashay Ethiopia aan ku dhashay. Anoo yar ayaan kasoo tegay Kenya imaaday. So waddanka Kenya ayaan ku barbaaray, ku qaangaaray. Mareykan waxaan soo galay anigoo 17 ah. Marka Mareykan kuma dhalanin. Okay, su'aashan haddaan ku sii daro gabaraa waxay soo weydiisay meel ayaan kugu arkay reer Kooma miyaa ahayd xabiibtii? Wallahi bila Soomaalideen maasha Allah wajiga xitaa waa la isgaran. Maasha Allah baa aad ayaan ku salaamayaa qofka aad tahay. Abayo reer Kooma ayaa ahaa. Aniga sector 2 ayaan deganaa. Balsho wanaagsan. Maybe dabcan waa soo qabatay wajigayga. Okay, su'aal kale waata. Maasha Allah abayo, we want to know you and your life. One question I have for you is how many kids do you have? Are you single mother? Adigoo raali ah. Okay, su'aashan Sharon ayaan siinayaa. Alxamdulillah, ani gabar la qabo ayaan ahay. Many times no igu soo noqotay 3 caruurna waan haystaa. Igana raali noqda hadday su'aalaha ku soo noqonayso because su'aalihii ayaa laga yaabaa 2 qof oo is aqaanin inay soo wala weydiiyaan at the same time. Dhici karto marka saas laajigeedu su'aasha ugu soo noqonaysaa. How old are you? Adigoo raali ah. Qaali dumar bal ii sheeg ii soo jawaab midaas. Hadda bishan aan ku jirno horta happy birthday dhahano markiina batee. Horta dad badan ma aqaanin kolay age waxa la ii weydiiyey dumarkeen age waan ka cararnaa mo. Laakiin dad badan maybe waxaa laga yaabaa inaan qof weyn la ekaaday, maybe waxaa laga yaabaa inaan qof yar la ekaaday, maybe I don't know kolay dabcan. Laakiin aniga waxaan jiraa 28 jir. 28 ayaan haddana buuxiyey 28. Tell me your real name huno qabiilkee tahay adigoo raali ah. OG ayaan kugu qabanayay bal noo soo sheeg. Horta OG haddaan fiiriyo waa waxaa waaye ogaadeenka dadka miyaa saasaan jeclahay.
anyways aniga horta qof Soomaali ayaa ahay oo muslim qabiilna ma geli karo fahanteen marka waxaa fiican qabiilkayga inagoo igu soo raacin inay igu soo raacdiin bini'aadamnimadeyda iyo islaamnimadeyda marka ilaahay aa sheegtaa rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waa sheegtaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaas la uga baxaya qabiil ma geli kara iga raali noqo walaashay gabadha isoo weydiisay what is the biggest lesson you have learned last year sanadka hadda lasoo dhaafo wax haddaan bartay waa xanuunihii badnaa nagu dhacay iyo dadka dhammaan u dhinteen ilaa u naxariista inta islaan xanuunkaasaa noogu darnaa last year intaas la sheegi karaa waxa aan ka bartay waxaa waaya in la israali geliyo because xanuunkan waa xanuun aad loo dhimanayo aadna loogu dhammaaday gaale iyo muslimba intii have you ever get heartbroken and don't lie about it swear god ali soo dheeno ilaahay ku dhaaro bismillaahir rahmaan heartbroken kasi qaabyo badan u dhacaa ma waxay ka wadaa abaayo yani heartbroken in relationship or heartbroken or because hooyadaa nijib kugu dili karo aabaha kugu dili karo walaasha macalinkaaga saaxiib hadaa leedahay ninkaaga so aniga either ways dhinacyaha badan dhan heartbroken way igu dhacday yes bini'aadan ahay because qof walba waa bini'aadan qof ma jirto oo qalbigiisu u taagnaa ku dhintay oo qabri lagu geliyo ma jirto qof walba heartbroken uu soo maraa qoftan waxay dhahday wax noo sheeg abaayo tell me something that did make you happy very happy in your life and something that makes you cry wax ani iga farxiyey iyo ani wax igu oohiyey aniga wax aad iga farxiyey waa maanta gabadheeda aan helay taasaa igu farxa badneed hooyo gabar walbo Soomaaliyeed iyo gabar walbo any woman in this world maanta the day they become a mom maantaasaa noloshooda ugu macaanaanayso that's one thing I know in life because hooyo ayaa lagu wacayaa farqi weyn u dhexeeya markaa gabar tahay iyo marka hooyo uu cunug ku leeyahay waxaana igu oohiyey waxaa igu ooyisay maanta iyadii dhimatay ilaa u naxariisto jannada firdowsana allah intaa ka waraabiyo taas ayaan dhihi karaa how did you fall in love with your husband storygaas mar kale inaan ka sheekeeyaa igu fiicnaan lahayd because ani iyo ninkayga saan isku jeclaan inta haddaan ka sheekeeyo shaaxan intuu dhammaada shax kaloo lagu daraa ma fahanteen marka insha allah mar kaleeto ayaan iga sheekeyn doonaa taas laakiin jaceylkeena inta haddaan soo dhigno waxaan u malaynayaa waxaa la igu darayaa kooxyaha jaceylka ma fahanteen iska kabtan waa intaas who said I love you first yaa dheh waa ku jeclahay aniga horta waan ku jecla hooyaday aabey iyo family gabdhaheena iyo kutiyaan dhahaa taasaa horta aqaanaa qofkii hormaray jaceylka koogana my husband did how tall are you ana waxaa ahay 5'6" qof dheer ayaan ahay muu ekmiya ma istaaga horta hadhow aan ii istaagi doonaa insha allah how many guys did you date ukaad shaaxa aa cabi bismillah oh my god naba garanaya binaan wax dheed gareeyey in kale aniga horta date dad islaam muslimaan nahay wax ma dheed gareyno marka sheeqiintaa igu dirina boliis inta adduunyo ka taxiyo yaani idhii gabar waalataa meesha soo gashe ana hadda wax dheed gareyna ma husband aan dheed gareey hadda wax la sheekeysanayn ma husband ayaa la sheekaystay I just want to know your whole life ha ila yaabin saaxiibay ilaa ninkaaga ma arkin abaayo dhib ma laha insha allah ninkaygan waa arki doontiin uuna ku jiraa youtube-kayga ciid mubaarak ciid yaray ciid videogan soo geliyey uu ku jiraa qofkii rabo inuu arkane tiktok wuu igula jiraa snapchat wuu igula jiraa youtube-ka haddaa lagu arki waaye qof walbana has a choice aniga ninkayga waxaa waaye qof oo privacy waaye social media waxyaalahaas kama helo qof walbana has a choice ana haddaa ku jiro asaga uu ka heli it's okay asaga hadduu ku jiri lahaa ani aan ka heli lahayn wuu i xishmeyn lahaa marka social media waxyaalahaas kuma haysto kamana helo laakiin insha allah wuu soo galaa youtube-kayga marmar waan ku qaban karaa dhib ma laha laakiin tiktok-kayga wuu ku jiraa snapchat-kayga wuu igula jiraa laakiin video markaan duwaayo ma soo galo and I respect that and I will always respect that lagama yaabo waxyaalaha qaar uu raali ka ahayn inaan sameeyo
how old did you get married? As I can see you are too young lady. hadaya midan ka hadlayay dad waxaa laga yaaba inay arkaan dad qof weyn, dadna waxaa laga yaaba inay arkaan gabar yar, dadna waxay dhexdhex. marka gabadhan hadda dabcan gabar yar ii malaysaa baayo walaale macaanay waxaa ii malaysa 1916. thank you so much xabiibti. ma yarina meeshan kuma koobno, agekayga waan soo sheegay. waqtigaan guursaday, agekaan ku guursadana aniga I was 21 haddaan qaldeynin. noloshaada weligaa ma oysay? nolosheeda haa, qof oynayni maa jiro, mar walbaa iska ooyaayay, iska dhawoyaano. aniga ooyin haddaan ooyay of course waa oynaa, because haddaa hooyada oynaysa haddaa ark waa la oynaa, aabee oyna haddaa ark waa la oynaa, reerkeena oyna haddaa ark waa la oynaa of course. marka so yeah, waan ooye, ooyin badan waa isoo martay. familigeena ka mid ah number 1. hadduu qof murugaysani waa la murugoonaa, hadduu qof faraxsani waa la faraxsanaanaa, taas waa ooyin. su-aasha xigto gabar waa waxay tiri magacaaga saxda ah maxaa waaye abaayo adigoo raali ah? magacayga aan iskiin baro, xabso ayaa la dhahaa. xabso ayaa la dhahaa magacayga, barasho wanaagsan. xabso maxamed ayaa la dhahaa. intii aqaanin hadday batay, intii taqaano way taqaanaa. adduunka maxaa ugu jeceshahay maxaana ugu necab tahay ka ahayn hooyo iyo aabo? hooyada inaa dhahaya ogeed miyaaya aabey. maxaa ugu jeclaa ani adduunka? adduunka waxaa ugu jeclaa hooyaday aabey hataa laga saaro waalidiinteeda kale. ani waalidiin aad u badanaan qabaa. familigeyga comes number 1. all my family waan jeclahay. dhinac walba haddaa la ii dhaafo aniga ko waxaan prioritigeyga dhan number 1 waxay my family. my family ayaa ugu jecel. my family wax ka qaalisan adduunka inuu jiro ma malaynaayo, mana dhici doonto. marka reerkeyga ayaa ugu jeclahay. wax ayaga booskooda ii buuxinayn ma laha. ciyaalkeygana kadaaliga igu dar waa jeclahay. adduunka maxaa ugu necab tahay? adduunka waxaa ugu necbaa qofkii been ii sheego. been qofkii ii sheego aniga qofkaas ma, the only person aan cafin karo waa qof familigeyga ku jira hadduu been ii sheego. because aniga dhanka familiga marka la yidho wallahi been ma sheegaa, mana isxayeysiinayo. reerkeyga familiga aad ayaan u jeclay. they come ani dhankeyga number 1 ay ka yihiin, no matter what it is. hadday qalad xun iga galaan waa cafiyaa. marka beenta ayaa ugu necba qof hadduu ii sheego. su-aasha xigta waxaa waaye noloshaada maxaa samaysaa? yacni hooyada miyaa la joogtaa mise keligaa ayaa degan tahay? aniga horta hooyadayga ma dheero. hooyaday way la joogtaa. hooyo bisna ma ahe, familigeyga dhammaan igama dheero. aniga reer familigeyga waa dariskeyga. maa la degan tahay? degitaan haddaan dhahani lama degani. ani gurigeyga ayaan deganahay. gurigeyga gooni waaye, waa lay qabaa. ninkeygaana la joogaa. caruurteeda iyo ninkeyga aniga waa isla deganaa. 1 family ayaa nahay. laakiin hooyo igama fogo, igamana dheero. mar walba gurigeeda waa joogaa hooyaday, walaasha gurigeeda waa joogaa, habartey gurigeeda waa joogaa. reerkeena dhanka ma dhex baxo, daris ayaa nahay. su-aasha xigta waxaa waaye assalaamu calaykum abaayo, waan ku salaamay. aniga gabar ayaan ahay, damcan ka wadaa. waxaa ii sheegtaa noloshaada maxaa kugu farxad badan? aniga waxaa igu farxad badan horen oo u sheegay, haddana kusoo celinayaa. gabadheyda maanta aan dhalaayay waa March 2016keeda. maantaasaa igu farxad badneed aniga iyo wiilkay qababo. labadeena maantaas maalin iga farxad weyn inuu jirto ma malaynaa. dabcan asaga hadduu yaag farin su-aashaasoo kale dhihi lahaa ka jawaab, gabadha lagu dhihi lahaa. anigana sidoo kale mar walbana waan dhahnaa. midda kaleeto waxaa igu sii farxad badan qof islaam ah, qof muslina ahay, ilaahayna caabudo alxamdulilah. mar walbo saacad ka saacad, sanadba ka sanad, minid ka minid, second ka sanad, ilaahay waqtigu igu sii daraayo. taasna waa farxad kale alxamdulilah. cimrigeygana ilaahay ha dheereeyo, ilaahayna ha ituso caruurteydu ii weynaadeen. okay, su-aasha waan dhameeyey. dhammaan su-aalahayga dhan halkaas ayay ku kooban yihiin. marka kheyr badan ayaan ii rajeynaya, waan ii jawaabay. I hope dhammaan akhyaarta dhan igu xiran inaa ka hesheen su-aalaha dhan. haddaana ka jawaabin dadka qaar su-aalahooda xumaanaha ii dareemina, aad iyo aad ayaan ii jeclahay. midda kaleeto guys, thank you so much. thank you. sanad gudaheeda ayaan 3,000 almost ku dhawaad laga yaabaa weekend inaan buuxiyo.
YouTube waxaan kusoo biiray last year tolofkeeda which maanta aan duuwaayo laakiin tolof lama post gareynayo inta aadid gareynayo waqtigu qaadanayaa marka ilaa iyo hadda qaal noqdo telefoonkeyga ii soo dhacay marka thank you so much guys akhyaarteyda aad iyo aad u mahadsantihiin waxaana rajeynayaa insha Allah sanadka dambe more ka badan ka farxad badan inaan insha Allah arki doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana nii rajeynayaa videogan haddaa ka heshid please and please ha ila dhaafin subscribe kaadoo taabanin dambalarka dhac ka sii like-iga gacanta dhab waxaan ku dhahay hana dhaafin waa inoo hee videogeyga dambe insha Allah